صورة في الخلق من ماء وطين يا من سما في وصفه فوق كلام الواصفين أبدعت أحسن صورة في الخلق من ماء وطين يا ربنا يا ربنا يا رب كل العالمين أنت إله واحد بلا شريك أو معين أطعمتنا وسقيتنا وجعلتنا في المسلمين وكفيتنا وأويتنا يا من تزيد الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقيبتني قلم نمو كلن كأني مالنتي أفراد شراقونات كأني أما كلن أقونات كأني كن سقال بقول سقاشن يلحدا مقالة قوتب وكذا عيي أين سوق مقابيين ورد إسلام كسودان مركا قلبتي محاضرة إنه وحي كبل عضانيسا محاضرة مقعد اللي يرادو تبيان القرور والتنبيه المغرورين أما كتسوميدا عدين تيدا إيا براروجينتا كوا كتسون محاضرة عوان كاسله وحا هدي إلى هاي يرادو ستة فافتران نوغسو تشيدين إياه الأخ محمد معلن أمل أيام محاضرة داس سوجودين دونا وحانا رجينينا إن محاضرة داس سفا فاسن أو دميستران أو شيخ مارة نوغها قبتري دونو ومحاضرة تبيان القرور والتنبيه المغرورين يا الشيخ محمد معلن أمل فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محاضرة عنوان كيدو وسيدي هوري لو شيغي قولنا على شيغي تبيان الغرور وتنبيه المغرورين كتسونانتا عادين لعديو iyo dadka kadsoon oo la baraarujiyo ciwaankaas ay muxaadaradu xambaarsan tahay. ilaahina subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo gudashadeeda wixii sawaabana uu nawaafajiyo gafkana inuu na garan mariyo iyana Allah subxaanahu wa ta'aala weydiisanaynaa. mawduucu marka walaalayaal waa ballaaran yahay waa mawduuc aad u guda weyn weeye saddex muxaadaro iyo laba muxaadaro iyo ka badan baruntii wax weeye waa u qalmaa laakiin bal jaaniska waqtiyan haysto ayaan insha Allah ta'ala isku dayayaa inaan ku soo ururiyo inaha muhiimka ah wixii kaleetana su'aalo ayaa insha Allah ta'ala cidii tabaysa ay ku dhamaysan doontaa. waxaan ogsoonahay haddii aan mawduuca u samayno gogol dhac ama araar u samayno waxaan ognahay
إن الله سبحانه وتعالى خلقا أبوري أنا أبوري امتحان إن ليس امتحانه ولا ليس دلاليو ولا ليس كلاميرو ولا ليس كالغرغريو أي الله سبحانه وتعالى نلشي غيرده أبوري وحادليلوا قوله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى وحو أبوري نلشا يغيرده أيو أبوري si uu u ogaado si uu inin imtixaan kana uu ugu ogaado kiina amal wanaagsan kiina amalka xun iyo kiina amalka fiican kiina aqeedada wanaagsan iyo kiina aqeedada xun ka dhaqanka wacan iyo ka dhaqankiisu xun yahay si aad u soo kala baxdaan daraadeed buu Allah subhanahu wa ta'ala geerida iyo nolosha uu abuuray buu Allah oranaya subhanahu wa ta'ala mar hadii marka arintu arin imtixaan ay tahay baadhisna ay tahay la doonayo in leena gun baadho oo leenaga salgaadho waxa laga maarmaana inay meeshaas yeelaan amaliyadaasi meesha ka dhacayso waxa looga maarmaan ah kow inuu jiro cidii imtixaanka gali lahayd cid imtixaankii gasha waa laga maarmaan waa dhinaca koobaad weey dhanka labaadi waxa weeyaan shaygii lagu imtixaani lahaana waa inuu meesha yaalo laba quwadood oo midna jecel yahay inuu baaso oo imtixaanka uu ku barmooso midna ay u jiidayso inuu imtixaanka ku dhacana waa inay meesha yaalaan intaasi waa looga maarmaan imtixaan markii Allah subhanahu wa ta'ala uu ka cabiray inay nolosha geeridu tahay sidaana loo abuuray ibn aadamka imtixaanka daraadii loo abuuray ibn aadamka marka iyo jinniga oo la isku yiraahdo labada la cusleeyay ee takaaliifta iyo xilka lagu cusleeyay labadoodaasi waxa weeye waa dadkii imtixaanka gali lahaa imtixaanka dadkii gali lahaa waa dadkaas imtixaanka dhulka lagu galayana ama meesha lagu galayana waa adduunyada way awoodda shar ee ina jiidaysa doonaysa imtixaanka inaan ku dhacnana waa shaydaan way shaytaan kasoo ballow ibliis laga soo gaaro shayaatiinta ibn aadamka ku jirta iyo kuwa jinniga ku jirta intaba waa quwwatu shar baa la yiraahdaa sharka quwadiisa iyo awoodiisa waxay ku dadaalaysaa sidii imtixaanka isaga loogu daadan lahaa intaaba maadaama ay jiraan waxaan marka garanaynaa in aan imtixaananahay oo aan imtixaan ku jirno imtixaankana hadafkiisu ay tahay inaan kala cadaano ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaankiisa inaan ku kala cadaano oo aan la isdhexdaadsanaanin kan kadaata munaafiqa kan gaalka ka iimaanka sheeganaya ka caasiga ka daacada ka beenaalaha in sida aan la isu dhex ooline inta masaf la isu qaato la isgurguriyo in la kala baxo saas Allah subhanahu wa ta'ala uu doonaya in la kala haro oo la kala miirmo qasadka Allah subhanahu wa ta'ala takaaliifta u soo dajiyay sharaa'icda u soo dajiyay rususha u soo diray kitaabta iyo dhaqanka u soo dajiyay shaydaan loo abuuray inaga leeno abuuray qasad kale ma aha rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu doonayaa inuu dad xusho dad inuu xulu doonayo la baxo dadna in qashinka lagu reebo oo laga tago ayuu Allah subhanahu wa ta'ala doonayaa shaydaanna wuxuu doonayaa isaguna dad inuu la baxo oo dad la goosto marka mawduuci kadsoonaanta iyo dadka kadsoon dib hadaynu ugu noqono muqaddimada yar kadib waxa jirta kadsoonaanta asalkeeda waxa la yiraahdaa lafdiga quruurka marka dib loogu laabto luqada carabiga ah waxa la yiraahdaa khiyaanada la yiraahdaa al-khadi'a wal-iqa' fi al-batil bal yiraahdaa ruuxa inaad khiyaanto oo shay ظاهركيسي يا باطنكيسو iskala gedisan iskhilaafsan yihiin inaad ruuxi ku khayaanto taasa waxa la yiraahdaa quruurka la yiraahdaa qarrahu shay baa la yiraahdaa shaygii baa kadiyay waji fiican buu isu tusay mara fiican buu u huwaday yaani waxa way markaasuu mooday inuu sidaasi dhab ka tahay hoosna wax kale ka jira xaqiiqatul quruur kaasa la yiraahdaa
in baadil lagugu rido oo xumaan lagugu rido laguna qurxiyo oo lagugu siiyo asagoo la malabeeyey oo la qurxiyey oo waji wanaagsan loo sameeyey in lagu siiyo markaa kadibna sidaa inaad ku qaadato adoo wanaag moodaya gadaal dambana uu kugu soo baxo xumaantiisa ay dib kaaga soo baxdo quruurka sidaasaa la yidhahda mithaal haddaan u samayno maalan nin baa wuxuu kaa iibinayaa maalan kiilo dahabuu kaa iibinayaa dahabku dahab ma ahe waa dhagax caadi ah laakiin biyo dahab baa dusha laga marmariyay waa dhalaalahaya dahab buu kaaga dhigay marka qiimo aad iyo aad qaali abuu kaaga iibiyey dahab ahaan baad ula wareegtay gadaal dambe goortii gurigaaga aad la tagtay furfurtayba waxaad u tagtay dhagax yacni waxa way sidii ilaahay u abuuray maqruur baa tahay waad kadsoontay waa lagu khiyaamay waana lagu siray waana lagu shirqoolay xaqiiqatu lquruur marka taasaa la yidhahda xaqiiqatu lquruur ama kadada mawduuca yacni hala macnayo haddii la yidhaahdo kaas weeyaan dadka kadsooniyey yihiin iyo kadada asalkeeduba maxay tahay mawduucu noocaas weeye markii la yidhahdo hala sharxo haddii aan mawduuca iyo cinwaanka sharxiisa ka baxno kitaabka Allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam masaadirteena macsuumka markaan dib ugu laabanno waxa inoo soo baxaya kadadu laba mid bay ka timaadaa in ruuxa shirqool uu ku dhaco oo uu sirmo oo la khiyaamo laba mid bay ka timaadaa ama waxay ka timaadaa ibliis iyo shaydaan odayga sharka ah sharka odaygiisa halkaasuu ka yimaadaa khiyaanada iyo khadeecadu asalkeedu ka timaada ama waxay ka timaadaa adduunyada iyo birbiriqeeda iyo muuqaaladeeda quruxda badan bay ka timaadaa labadaa mid ka mid ah ayaa quruurku ka yimaad sida aayaadka qur-aanka ee Allah subxaanahu wa tacaala ay caddaynayaan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum wakhshaw yawma laa yajzi waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay'a ina wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya walaa yagurannakum billahi algharuur falaa tagurannakum alxayaatu addunya bacdama Allah subxaanahu wa tacaala uu ka sheekeeyo yidhi wardadow alla ka cabsada oo maalin iska ilaaliya maalinkaasoo kii wax dhalay kii uu dhalay uusan waxba u qaban karin kii la dhalayna kii dhalay uusan waxba u qaban karaynin maalinkaa ilaahay ka cabsada buu alla odhanaya subxaanahu wa tacaala waxba uma tari karayo markaasaa rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ballanqaadka allana waa mid xaq ah waa mid gar oo dhag ah oo macnaha waxa way dhab ah oon marnaba dhayal ahayn markaasaa waxaa la yidhi falaa tagurannakum alxayaatu addunya adduunyada nolosheedu yuusan idin kadinin ha ku dagmina yaysan idin sirin oo idin khayaamin nolosha adduunya buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa yagurannakum billaahi algharuur midka kadada badan ee khayaanada badan yuusan idin khayaamin oo yuusan idin shirqoolin waa shaydaan weeye sida macna mufasiriintu ay ku fasirayaan gharuurka dambe waa shaydaan marka gharuurka iyo kadadu wuxuu ka yimaadaa ama wuxuu ka yimaadaa shaydaan ama adduunyuu ka yimaadaa adduunyada lafteedana yacni waa beertii uu ku adeeganayey shaydaanku ku adeeganayey wey aayad kale Allah subxaanahu wa tacaala iyadana wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya walaa yagurannakum billahi algharuur aayaddaas iyaduna la micnatay dadow ballanqaadka Allah subxaanahu wa tacaala waa shay dhab ah weeye in aakhare la tegayaay shay dhayal iyo ciyaara ma aha shay ku tirukuteen ah ma aha shay barbagaandha ana ma aha waa shay dhab ah weeye aakhare in la tegayo oo ahlu naar iyo ahlu janno loo qaybsami doonaaye ballanqaadka noocaasoo kaleeta ah waa mid dhab ah weeye mar hadday sidaas tahay ballanqaadkii yuusan idin halmaansiinin adduunyo nolosheeda iyo midka kedada badan ee khayaanada badan ee shaytaan ah yuusan idin halmaansiinin buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala markaasaa cadaawadda shaydaan lasii muujiyey ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuha caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir yacni shaytaan cadow buu idin yahay cadow ka dhigta dadkiisana wuxuu ugu yeedhayaa oo ugu baaqayaa dadka uu doonayo inuu ay raacaan wuxuu ugu baaqayaa meeshuu ku wadaayay waxa weeyaan inay noqdaan naarta inay ugu heliyeelaan meel kale kuma wado inay guulaystaan ma uu doonayo inay saacadiyo liibaan gaadhaan ma doonayo
bal wuu ka xun yahay wuxuu ka dagaalamayaa inay liibaanaan xagee buu ku wadaa wuxuu doonayaa naarta jahannama inuu ku xareeyo marka ninkaas cadow kale ma lihidine cadow ka dhigta buu rabbi ilaahi subxaanahu wa tacaala aayad kale oo iyaduna la mid ah oo adduunyada iyo shaytaanka inay kadadu ka timaado iyo shirqoolku ka yimaado ruuxu ku dagmo ayadana aayad kale oo tilmaamaysa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yunaadunahum alam nakum ma'akum qaluu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور سأسأل الله سبحانه وتعالى مركي آخر الله توسي آيات كسر شيكيني dadkii munaafiqiinta ahaa ilayskoodii ayaa ka damaya maalinta ruuxu uu baahan yahay wax yaro iftiino oo ku maro mugdiyada iyo boholahaas uu kaga gudbo maalintu ugu baahi badan yahay maalintaas dadkii munaafiqiinta ahaa ee uurka gaalada ka ahaa iftiinka ka damay meel xun goor la marayo iftiinka ka damaya markaas waxay oranayaan dadkii muuminiinta oo iftiinkoodii sii baxay arkayaan sii socod markaas waxay ku oranayaan unduruna naqtabis min nuurikum dib noo soo fiiriya aan idin ka dhuxul qaadanay xogaa iftiinkiina balan wax ka qaadanay dib noo soo fiiriya oranaya yaani waxa weeye jahannama la jooga siraadkii baa la maraya mugdi baa lagu jira meel xun baa la maraya goorta halka leedku kaga damo oo nalku ka damo oo iftiin waayaan ayaa marka waxay kugu jawaabayaan dadkii muuminiinta ahaa waxay oranayaan war Soomaaliland idin la jirin oo adduunyadii maanaan idin ku dhex jirin oo masaajidda idin maanaan camiri jirin oo macnaha waxa weeye goobaha isu imaadka iyo digriga maanaan buuxin jirin maxaad nimayaha nooga tageysaan bay ku oranayaan markaas waxay oranayaan waad nala jirteen oo waad nagu dhex jirteen laakiin naftiina ayaad fitnayseen islaamka iyo muslimiinta ayaadna waxaad la sugteen kado iyo dhib ayaad la sugteen waadna shakideen oo iimaan quman iyo tawxiid quman maydaan la imaanin tawxiid shaki ku jiro ayaad la timaadeen waxaana idin keliyay dilooyinka shaydaan baa idin keliyay dilooyinka uu idin sameeyo yaani waad noolaan doontaa nolol dheer baad ku noolaan doontaa ma aad dhimanaysid haddaad dhimatana waxa weeye ummatu maxamed baa tahayo kollay naar gali maysid ila aakhiri sheekooyin noocaas oo kale idinku sheekeeyay tiibaad ku kadsoonteen waxa kale idin kadiyay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku kadiyay ninkii odayga ahaa ee shaytaan ahaa ayaa idinku kadiyay sidaa daraadeed maanta nuur ma aad helaysaan jawaabta ayaa loo bixinayaa marka kadadu aayaadka quraanka waxay ku soo aroortay adduunyana waa lagu kadsoomaa shaytaanna wax waa kadiyaa labada qaybood baan marka insha Allah taala ka intilaaqi doonaa muhaadaradeena labada juz'iyo oo macnaha waxa weeye shaytaan oo oday u ah kadada iyo shirqoolkeena iyo shar la doonida shar leeyna la doonayo ra'si iyo oday u ah iyo adduunyada oo ah yaani shabakada ama macnaha waxa weeye dabinka uu ku ugaadho ee ibn aadamka uu macnaha waxa weeye ku dabo isaguna ah labada qaybood baan insha Allah taala wax ka taataaban doonaa waxaan ogsoonahay cadaawadda inaga dhaxaysa inaga ninka odayga cadaawad taariikhi ah weey cadaawad la kowsatay weey abuurkeena la kowsatay waa cadaawad da'weyn weey waxaan ogsoonahay oo rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa noogu sheegay in markii Allah subxaanahu wa tacaala aadam abuuray intuusan aadam abuurin shaydaanku inuu ku dhex jiri jiray malaa'ikta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaa malaa'ikta mid ka mid ah malag muusan asalkiisa dab baa laga abuuray malaa'igtana nuur baa laga abuuray nabigu sallallahu alayhi wasallam waa xadiidka saxiixa ku oranaya khuliqatil malaa'ikatu min nuurin wa khuliqatish shayaatiinu min naar wa khuliqa aadamu mimma wusifa lakum saasu nabigu sallallahu alayhi wasallam malaa'iktu nuur baa laga abuuray aan lagu gubanayn shayaadiintana dab wax gubaa laga abuuray iyo jinniga aadam oo aabihiina waxa laga abuuray wixii quraanka la idinku sheegay dhooba abaa laga abuuray asalka marka abuurkoodu isku mid maahan cunsurkay ka sameeysan yihiin isku mid maahan laakiin inuu ku dhex jiri jiray hawsha malaa'ikta qabatuu la qaban jiray inuu ka tirsan yahayna waa isku tirinay goortii Allah subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi aadam uu abuuray aabaheen ayaa marka Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu malaa'iktii faray inay u sujuudaan nabiyullaahi aadam وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر
goortii malaa'igtii kulligood ay aadam u sujuudeen karaamayn iyo maamuus iyo qadarin aabbahen la qadarinaya daraaddeed shaydaan waa isi soo taagay waa diiday uma sujuudayo buhi aniga maxaa dhacay maxaa yeelay anigaa ka jinsi fiican oo anaa ka asal fiican oo anaa ka nasab fiican sidaa daraaddeed ninka fiican baa in loo sujuuda ay ahayda ma ahayn inaan ugu sujuudo halkaasuu qiyaas iyo caqli ula kacay rabbi subxaanahu wa tacaala amarkiisiina ku diiday oo jeeda khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin buu idhi dab baad iga abuurtay aniga iyo naar baad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay dhoobadaana asal ahaan iyo dabkaa ka fiican buu wataa sidaa daraaddeed anaa ka asal fiican anaa ka fiican anaa in la ii sujuudo mutaystay oo isagu ii sujuuday ma inaan anigu sujuudo halkaasuu soo taagay ninkii ibliis ahaa goortuu isa soo taagay ayaa allah subxaanahu wa tacaala marka lacnaday fakhruj minha fainaka rajiim waina calayka allacnata ilaa yowmi iddiin yuu alla ku yidhi subxaana wa tacala bax baa lagu yidhi ka bax meeshan tadaata yacni kuma habboona mana lihid gar uma lihid inaad meeshan tadaata isku weynaysiisee hoos uga deg buu rabbi ku yidhi subxaana wa tacala lacnaddii ilaahay baana kugu dhacday ayaan darraa kugu dhacday ilaa maalinta laysa soo saaraya laga gaadho intaas lacnadda ilaahay kula socotay in ka dambaysabe idhaaf baa alla ku yidhi subxaana wa tacala waa la soo caydhiyey goortii la caydhiyey su-aasha isweydiinta le marka waxay tahay ninkankaata muqarab buu ahaa oo meelo fiican buu joogi jiray oo dad wanaagsan buu ku dhex jiri jiray sababka keenay in la caydhiyo oo lasoo caydhiyo lasoo fiijiyo muxuu yahay sababku wax kale ma aha waa aadam wey aadam sujuuddii la faray u sujuud la yidhi ayaa keentay mansiladiisii iyo meeshuu joogay in laga soo eriyo oo la soo dejiyo muxuu samaynayaa marka wuxuu samaynayaa inuu aargoosto marka waa inuu aargoosto oo cadaawad qaado oo uu isku dayo siduu uga aargoosan lahaa aadam iyo carruurtiisa uga aargoosan lahaa cadaawad marka la kowsatay weeye abuurkeenniba la kowsatay weye goortii layna abuuray oo aadam aabbaheen la abuuray aan ka soo farcannay goortaa iyadaabay bilaabatay cadaawadda inaga dhaxaysa innaga iyo ibliis iyo acwaantiis shaydaan la odhan jiray cadaawadda isagii innaga naga dhaxaysa halkaasi ka bilaabatay markii ilaahay lacnadiisa ay ku dhacday ayuu markaa laba istiraatiijiyu degay istiraatiijiyada koowaad waxay ahayd inuu alla subxaana wa tacaala ka codsado in loo kaadiyo inaan loo dhammayninoo adduunyada hadda la dhaafinin sababka uu u leeyahayna ma aha inuu nadaamoodo oo ka xumaado wuxuu galay oo uu toobadkeena ma aha laakiin qasada wuxuu doonayaa inuu helo jaaniskii uu kaga argoosan lahaa aadam iyo carruurtiisa kaga argoosan lahaa markaasuu rabbi weydiiyey subxaana wa tacaala rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcahuun ilaahayow ii kaadi oo ii sug ilaa maalinka la soo saarayo ilahay iska kaydaa ilaahay subxaana wa tacaala lixikmatihi albaaliga ayaa markaasi u fasaxay waxaa ku yidhi innaka min almundariin waa laguu kaadiyey buu alla ku yidhi subxaana wa tacaala waa ku siinay codsigaagii muddadaa iyadaana inaan kuu kaadinno waxa weeyaan waa go'aan allah subxaanahu wa tacaala wey maxaa loogu kaadiyey waaba shar oo dhan meesha uu ka yimaadee waxaa loogu kaadiyey oo loo daayey ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmad iyo ujeeddo uu ka leeyahay kownkan ka leeyahay maalintaaba inuu ka takhallusu awooday maanta isagii ciidamadiisa intuu ururiyay inuu ka takhallusu awooday laakiin waxa loo daayay wax kale ma ah adigaagaas reerkaaga tabcanaya gurigaaga jooga ee caqiidadaada iyo iimaankaaga qalbiga kugu jiro adigaa in lagugu sallidaa la doonaya ilaahina subxaana wa tacaala wuxuu rabaa in uu ka dhigo warshaddii ibni aadamka kala saari lahayd munaafaq iyo gaal iyo islaam u kala saari lahayd iyo mulxid u kala saari lahayd in ilahi subxaana wa tacaala ayuu ugu talagashan yahay markii loo kaadiyey oo isku hubsaday ballanqaadkii allah subxaana wa tacaala in loo kaadinayo goortaasaa marka wuxuu caddeeyey ahdaaftiisa iyo ujeedooyinkiisa ayuu caddeeyey istiraatiijiyadii fogeyd wey alistraatiijiya alqariiba waxay ahayd in uu ilaahay ka codsaday inuu daayo goortuu daayeyna wuxuu ifsaaxiyey oo caddeeyey oo uu macnaha la jahray isagoon qarsanaynin ahdaaftiisa marka fog ee uu doonayo inuu taxqiijiyo waa ka marka ku dhawaaqay rabbi bimaa aghwaytanii lausayinanna lahum fi اlardi walaughwiyannahum ajmaciin ilaahay baan ku dhaartay ilaahay baadida aad ibaadiyaysay daraaddeed waan u qurxin dhulka ayaan u qurxinaya yacni waxa way carruurtii xoolihii iyo dhaqaalihii beerihii lacagtii maguurtadii haweenkii ilaa aakhirihi
يعني أدونك إيا مظاهرتيس إيا مقالديسا كاوي الضبن كأن أريد دونين كجفا إذا سندونه هل كاسان أقرحين دونا أبو ربي سبحانه وتعالى كل جودنا وذاك حين أم بعديني إلا الضوم هذا أذيك كوجوني ذا أموياني إلا عبادك منهم المخلصين الضوم هذا حلتي إيه أضو كلب حذي موياني أنت هذا كلا أردن وأسكت بريدة يا أبو كرارتمر يعني وحو عدي مركا هدفك وإنه لهي أيو مركز عدي أو قحي نينك إبليس أيدا يدا أو قحي قرتو قحي مركا لونك هذه أو لداي وإنه مركا هول قلو بلنقات كإستجا وإنه مركا فلنتيسي باللابو فلنتيسي أيو مركا باللابيا إلهي بنا سبحانه وتعالى كده مصدر اختبار وامتحان يعني ميل ليسكو امتحانه ضدك لو اختبار ربي كده سبحانه وتعالى على ود مركا إبليس يا شيطان يا إنك قد حيساي على ود كستأرن أو بين البشر كأما ضدك كده حيساي وكوينت وأنا كأذكته وكأخطر سنتهاي محايا للدور الرماد وخطر سنت ومد كوباد وعدو أن مقنوه إنه يراكم من حيث إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم السجع يدد كيسوا وإذن أركان مالنا إذن كوك أركانين مد كلاته أود عدو كلاته أوصل لهان كريم بولي ابن آدم xoog kasta haduu leeyahay awood kasta uu leeyahay sidaan u tagi doono qalbigaaga intuu galo dhiigaaga dhex galo inuu halka la shaqeeyo awood uma laha oo adigiiba uu macnaha waxa weeye masterkii laga hagayay xaruntii hagitaankii laga hagayay inuu dhex fadhiisto oo taladiiba uu isaga xaqiisa ka soo goodo awood uma laha laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala shaytaanka iyo quwadda iyada waxa uu makaniyay in uu jidhka ibn aadamka dhex galo oo macnaha xididada dhiigga u raaco qalbigana haduu dano uu dago xaruntii talada uu wadaaga marka xaruntii talada intuu dago meeshii taladii ka soo fulaysay markaas uu taladii wax ka wadaago oo naseexadii wax ka wadaago oo irshaadaadkii wax ka wadaago ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala makaniyay waa ka khatarsan marka cadow kasta waa ka khatarsan waxa cadaawadiisa ku tusaysa Allah subxaanahu wa ta'aala aayaadka quraanka dhowr aayado saddex aayadood oo quraanka ku jirto kamida ayaa wuxuu isgarab dhigay cadaawadda ka dhaxeeya ibnu aadamka dhexdiisa iyo cadaawadda ka dhaxaysa iyaga iyo shaydaan markaas wuxuu ku cabiray midda ibnu aadamka iyo ka dhaxaysa dhexdiisa ee dadka dhexdiisa ka dhaxaysa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu faray in macnaha si degan oo xasiloon oo naxariis ku jirto oo macnaha wax weyn nabadgeliyo ku jirto in lagu dhameeyo tan kaleete ee macnaha wax weeyaan inaga iyo shaytaan inaga dhaxaysaay taasi mid waan aqbali karta ma waan iyo heshiis iyo macnaha wax weeyaan kala qaadasho ballan la kala qaatay kama suurta gasho saddex aayadood quraan kamid Allah subhanahu wa ta'ala ku cadeey waxa kamida khud al-afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'an al-jahilin wa midii koobaad qaybtii koobaad way markaasa ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu shaytaanku wuxuu yiri wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billahi innahu samii'un 'aliim wajida afiga qaado oo wanaag dadka kula dhaqano amar dadka jaahiliinta ana iskaga jeesto rabbiga subhanahu wa ta'ala iska cafi shaytaan hadii uu ku waswaasiyana si cad ula dagaalan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka magan gal oo ilaahay hoostiisa ku carar asaga soo dhaweysasho iyo cafi isagu ma ulaha cafi isagu ma laha ma aqbali karayba laakiin ibn aadamka soo dhaweynta iyo muaamalada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan cadaawadii idinka dhaxaysa waa ku baaba'aysa waa aayada kale Allah subhanahu wa ta'ala oranayo idfa' billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hadhin 'azim yani xumaan hadii lagu la soo aado xumaan lagu sameeyo wanaag kaga jawaab maxaa yeelay hadda sidaas sameeysa adiga ninka cadaawadu idinka dhaxaysa xumaantu idinka dhaxayso wuxuu ku noqonayaa saaxiib macnaha aydan kala maarmi kareenin oo isku dheertiin baad isku noqonaysa maxaa ka keenay dhaqan wanaaga cafigaaga dulqaadkaaga ka keenay goortii aayada la soo wado Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri marka wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah
asagu ma laha dulqaad iyo soo dhaweyn iyo nabadgeliye iyo yani midna haba yaraatay isaga agtiisa ma taalo aayad kale oo saddexaad oo iyaduna la macnaa ayaa jirta waa iska soo gaabsanaynaa saddexda aayadoodba sidii ibnu kathiir tilmaamayo waa saddex aayadood oo mid afraysa aysan jirin oo quraanka ku jira saddexdu waxay tilmaamayaan ibnu aadamka cadaawadda ka dhaxaysay inay aqbali karto in dulqaad iyo cafi lagu dhamayn karayo iyo duruq diblomaasiya nabadgelyo lagu dhamayn karo laakiin shaytaan iyo ibnu aadamka cadaawadda ka dhaxaysa iyada inaan lagu dhamayn kareynin ilaa jid cadaawo mooyaan inaysan nabadgelyo aqbali kareynin ayuu Allah subxaanahu wa ta'ala aayadka ayaga ku cadeynaya sidaa daraadeed asagoo fulinaya barnaamijkiisii uu ku dhaartay hadafka uu u nool yahayba isagoo fulinaya ayaa marka ugu horeysa oo ruuxu soo dhaco adduunyada ku soo biiro ayuu la xidhiidhaya bal intaaman la abuurinba ayuu isku dayaa inuu wax ku darsado ayuu isku dayaa waa ka nabigeenu sallallahu alayhi calayhi inoo sheegaya markii ninka iyo xaaskiisu ay isu galmoonayaan oo danihii ay kala gudanayaan in ay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka magangalaan shaytaan ka magangalaan shaytaan in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka magangalaan sababka sidaa loo leeyahay wax kastuu kula wadaagi reerkiibuu kula wadaagi raashinkiibuu kula wadaagi deegaankii iyo gurigiibuu kula wadaagi waysadiibuu kula wadaagi salaadiibuu kula wadaagi meel la kaagama maqna hadafka uu doonayo waxa weeye haddaad bisinka ilaahay qaban weydo caruurta halkaa ka imaanaysuu doonayaa inuu wax ku yeesho qayb uun berrita uu ka midha dhashado markuu adduunka yimaado inuu ku yeesho ayuu doonayaa sidaa daraaddeed buu nabigu sallallahu alayhi wasallam la dagaalamo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka maangala goortuu soo dhasho oo uu bannaanka yimaado nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamayaa ilmuhu markuu saa u soo dhacaba inuu kaliyaha uu faraha kaga duri kaliyuhu ka qodaynaya qaylada ilmaha uu qayliyo ooyay markuu soo dhacana wax kale ma taas weey yani waxa weey waa hujuumkii weerarkii ugu horeeyay weerarka ugu horeeyay uu sugayay intuu iimaanaya waa u diyaar garoobay goortu banaanka u soo dhacayna weerarkii ugu horeeyay ku qaaday waa daahira tafsiirkeeda aan garanaynin weey ilmaha markuu saa u soo dhaca muxuu qayliyo oo hinuu la soo dhaca wuxuu la soo dhaca ninka odayga waa dul saaran ninka odayga ahaa ayaa meesha jooga nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiis bukhari warinaya ayuu wuxuu leeyahay kullu bani aadama yut'anu fi janbayhi bi isbi'ayhi حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم كاستمركو صدعه شيطانكو كليها أيو كضراب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكقضية إلا نبي الله عيسى إيه يدي موياني نبي الله عيسى وحو الضمعي إن قضية ومعناه إساقنا الدراء أيو اسكده كورتو ضمعين حجابك إله سبحانه وتعالى وأسميه بفرتي سوق عظيم حجابك باك عليي لكن ددك انتودا كليتو وا دري waxna waa ku yeeshay saasuu nabigu tilmaamaya sallallahu alayhi wasallam xadiid kale taa isagana jira oo nabigu sallallahu alayhi wasallam ma min mawludin yuladu illa nakhasahu shaytaanu fayastahillu min nakhsati shaytaan bu nabigu sallallahu alayhi wasallam yani mid la dhalaya ma jiro illa markii la dhalo shaytaan baa duraya duridii shaytaan duray buna la dhawaaqaya bu nabigu sallallahu alayhi wasallam oo la ooyaya marka oo hinta marka taasa keenaysa waa weerarkii ugu horeeyay marka weerarkii ugu horeeyay way inta ka dambaysana wuxuu isku dayaa mar walba xataa yaraanta ilmaha uu yar yahay wuxuu doonayaa inuu isagu laynka uu doonayo iyo waxa uu doonayo inuu qabadsiiyo ila ilmuhu tarbiya kama soo hadhan wuxuu doonayaa marka isagu inuu tarbiyaysto oo siduu doonayo lagu tarbiyeeyo goortii la tarwaalidiintii buu la xidhiidhayaa dugsigii buu la xidhiidhayaa yani wuxuu isku dayaa marka tarbiyada iyo madrasada uu ka soo baxaya ilmuhu iyo akhlaaqiyadku qaadanaya miduu doonayo inay noqoto si barrito ugu xisaabtamo oo ciidan uu ku tashado uu noqdo fardiga isagii waxa kale oo iyadana jirta hawsha iyo amaliyadaas waa amaliyad ballaaran ninka u xil saaran in uu khalqiga basharka ilaahay abuuray oo dhan milyaaraadka mid kasta markuu dhasho intuu la xidhiidho inuu baadiyeeyo ninka u xil saarani hawl sahlan ma waa hawl adag weey hawshaas adag qasab waxa inay maamul leedahay inay madax leedahay inay ciidan leedahay inay siyaasad leedahay waa laga maarmaan intiiba wuu leeyahay
intiiba wuu leeyahay dawlad buu leeyahay tiknolojiya iyo horumar macnaha waxa weeyaan uu ka gaadho ayaa jirta hawshiisa uu ka gaadho waxaa jirta yacni qaabka uu camaliyada u gudanayo ilbaxnimo iyo khibrad uu ku qaato ayaa jirta marka inta aan inagu nahay iyo horumarkan qaadanaynaba asagu barnaamijku ku sii horumaraya waxa weeye sidii uu ugu guulaysan lahaa hadafka uu noolyahay maxaad u nooshahay adiga waxaad u nooshahay allah inaad caabudo subxaanahu wa tacaala adduunyada inaad camirto adduunyada saad u camiri lahayd marka maalinba yacni waxaad ku ilbaxaysaa qaab kaleeto oon qaabkii aad taqaanay ahayn asaguna qaabka uu ku ilbaxayo maalinba jid cusub iyo layn cusub iyo siyaasad cusub ayuu gaadhayaa u soo baxaysa maarta nebigu sal alla alay wasalam waxa uu sheegay ibliis markuu waa bariisto ciidamadiisa inuu adduunka u kala diro mamlaka weyn buu leeyahay boqortooyo aad u ballaadhan oo kulli looga taliyuu leeyahay wuxuu leeyahay gobollo iyo maamullo sii kala hooseeyuu leeyahay haddaan baarlamaanaad leenahayna baarlamaaneed wuu leeyahay baarlamaanaad iyo golo haddaan leenahay siyaasadeed golo siyaasadeed wuu leeyahay markii waagu baryaba ciidamadii buu kala amraya oo kala dirayaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhulku ka kala dirayaa markaasaa wuxuu leeyahay ninkii ruux muslima soo baadiyeeyay bilad baa loo xidhaya taaj baa loo xidhay yacni koofiyad sharaf iyo bilad baa loo xidhayaa ninkii nin muslima baadiyeentiisa kusoo guulaystay ballanqaadkaasuu la kala hayaa nin kasta oo ka mid a ciidamada markii ay hawshii soo qabtaan ayaa marka riboodkii dib loogu soo celinaya mid baa imaanaya markaasuu leeyahay hebel baan maanta oo dhan daba taagnaa oo saan isugu taxallujinaya islaantii baan ka furay islaantiisii isagii ayaan kala caydhiyey gurigii waa dumiyey islaantiiyo ninkiina kala carare carruurtiina waa bayla markaa waxaan soo fuliyey barnaamijkaasaan soo fuliyey riboodkaasuu keenaya markaasuu ku leeyahay wax weyn waad keentay laakiin waxaa laga yaabaa berrito inay dib isu guursadaan saasuu ku odhanaya mid kale isaguna ribood keenaya wuxuu leeyahay nin hebel ayaan daba taagnaa ruux hebel saan u daba taagnaa oon uga shaqaynayey waxaan geliyey inuu dhiig muslim daadiyo taasaan ku guulaystay markaasuu odhanayaa adiga wey nin rageedka lala'aa ee macnaha waxa weeye mutaystay in taajka loo xidho adiga wey mid kale isagun ribood keenaya ruux hebel saan u daba socday baan zina ku riday oo inuu zinaysto macnaha waxa weye aan geliyey markaasuu odhanaya alalaha adiga weeye ninka laakiin ugu fiican ee kulligood ka wada bilad fiican waa ninka ruux muslima islaamnimada intuu ka saaro gaalaysiiyey wey ninkaasaa wuxuu ku guulaystay boyntigu ugu dambeeya ku guulaystay goolka ninka dhaliyey waa ninkaa isagaa wey inta kaleeto laakiin meelo sogsoka ayay joogaan ciidamo noocaasuu marka leeyahay oo uu kala diro adduunkana u kala diro ruux walbana shaydaan baa la xidhiidha siduu nabigeenu tilmaamay salawatullahi wasalaamu calayhi min axad ma jiro ilaa shaydaan baa ku lamaan markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam waxaa lagu yidhi adigana xataa mid baa kugu lamaan nabi allow markaasuu nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam haa laakiin ilaahay wuxuu iigu kaalmeeyey inaan islaamiyo oo uu islaamo wuu islaamay kii nabiga loo soo diray salawatullahi wasalaamu calayh laakiin cid kale oo dhan shaydaankiisii waa shaydaan waana ku tacalluqa weliba siday u kala siyaasad badan yihiine u kala khibrad badan yihiine u kala caqli badan yihiin ee barnaamijka loo diray u kala fulin badan yihiin ayaa ruuxba ruuxu ka madax agyaha loogu diraya ruuxa iska caasiga mushriga dad badan loo diri maayo qolyo waardiga ka haya umbaa la odhanaya islaamnimo yuusan aadin kan munaafaqa ah asagana waxa weye waa nin laysku hubsaday meel baa la dhigtay ninka kaleeta ee macnaha waxa weye caasiga muslimka ah asagana waxa weeye qolyo ku filan baa loo diraya dadka laakiin laysugu geynayo shaydaan xoog badan iyo shayaadiin badan loo dirayo oo ciidan badan loo dirayo waa ninka mu'minka ee taqiga allihii ka cabsada subxaanahu wa tacaala xoogga halkaasaa la saaraya waxaa loo saarayaa in bal macnaha waxa weye laga soo dabciyo meesha uu taagan yahay calaa aqali taqdiir in laga soo dabciyo maarata nebigu marka salawatullahi wasalaamu calayhi inuu macnaha waxa weye qaabkaas u dagaalgalo ayuu nebigu tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayh waxaa kaloo iyada jirta goorta uu doonayo inuu ibni aadamka hawl ka qabsado oo uu seejiyo dantiisa seejiyo waxa uu yaqaanaa camalkiisa siduu u qabsan lahaa waa camal adduunyadu intay soo jirtayba uu hayay camalkana waxaa la yaqaanaa muddo dheer haddaad shaqada soo haysay waxaad ku yeelataa khibrad baad u yeelan ninkii muddo beer soo beeraya ama muddo macnaha waxa weye ganacsi ku soo jiray
وخبرة بدنيا هاي نين ما أنت بالله nin ba amalkan intuu ku soo jiray ayuu macnaha khibrad u leeyahay qaabka loo gutana macnaha waxa uu uga fiican yahay cid kale sida daraadeed amalkan maalintii layna abuuray aadam laga soo bilaabo waa malaayiin sano muddada iyada abuu ku dhex jiray sida daraadeed khibrad badan buu leeyahay ibn aadam kana khibrad badan buu leeyahay amalkiisa goortuu gudanaya marka wuxuu degayaa meesha laga hago jirka ibn aadamka meesha laga hago xagee way meesha laga hago qalbiga laga hagaa wadnaha laga hagaa wadnuhu waa xarunta jidhka maamusho way xubnaha intooda kale oo dhan waxay fuliyaan uun amarkii uu wadnuhu soo saaro amarka wadnaha ka soo fula ama xubnuhu qabtaan wuxuu ka reebana waa ka istaagaan wuxuu farana waa fartoomaan waxay isu yihiin oo lagu miisaaliyaa sidii boqor iyo ciidamadii oo kale ciidamadu waa tanfiid way waxbay fuliyaan hawl fulin way laakiin cidda wax soo dabarta ee amarku ka yimaado ee jihada sare ah wax way waa madaxweynaha iyo maamulka way jidhka ibn aadamka marka meesha looga taliyo ee taladiisu ay ka soo fusho waa qalbiga oo wadnaha ah nabigeennana tilmaamay sallallahu alayhi ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu nabiga sallallahu alayhi jidhka waxa ku jira cad baa ku jira cad yaro sidii hilib la saafay oo kale ayaa ku jira cadkaasi hadduu hagaagana jidhku waa hagaagaya hadduu xumaadana jidhku waa la xumaanaya buu nabigu leeyahay sallallahu alayhi marka xarunta iyada abuu degayaa oo inuu fadhiisto isku dayaa oo taladeeda dad la wadaago halka haddii uu fadhiistana oo talada halka uu ka soo bixiyana xubnuhu de taladii halka ka soo baxday bay qaadanayaan saadaradeed hadaa aragto cid macaasidu u fududahay xumaantu u fududahay wanaaguna ku adag yahay waa sida loo badan yahay qalbigooda waxa degan ninkii shaytaan ahaa degan isagaasa khayrkana u diidaya sharka iyo xumaantana u fududeynaya wayla waxa laga yaabaa labada amal ee midna fududeysanaya midna uu ka cararayo asal ahaan marka la isu fiiriyo kan khayrka ba laga yaabaa inuu ka fududeeyo oo xataa qabashada jirka uga fududeeyo laakiin taladu meesha ka go'aysay baa fasaaday haddii ay xaruntu fasaadana xubnihii kale iyo macnaha furuucdii kaleeto iyo macnaha laamaha kale inay fasaadaan yani waxa weeye baciid ma yani waxay la mid tahay geedka haddii xididada uu ka xumaado oo gunta iyo salku raaco laamo iyo caleema ma jirayaan haddiise laakiin geedka calaan ka mida ama laan ka mida ay xumaato salkiisii iyo xididadii u fayow yihiin wuu fufi geedkaasi yani dib buu macnaha waxa way u noolaan karaa qalbiga marka haddii uu xumaado waa ruux dhintay ruuxaas waa u dhamaatay haddii laakiin qalbigu nool yahay yani walow maalmaha qaarkood suuxdinba ha ku dhacde suuxdintaas inuu ka baraarugo ayaa laga rajo qabaa qalbigu laakiin haddii uu dhinto waa u dhamaatay ruuxa noocaas oo kale qalbigiisu u dhintay sida daraadeed buu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamayaa qalbigu inuu yahay meelaha imtixaanku ku dhaco imtixaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha la iska imtixaano waa qalbiga weey wuxuu nabigu tilmaamayaa sallallahu alayhi wasallam asbaabta jirada keenta ee ibn aadamku uu ku jirado waxa loo bandhigaa quluubta loo bandhigaa markaas quluubtu laba qaybood u qaybsamayna qaybna waa diidaysa macsiyadii shirkigii yani xumaantii qalbigii fiicnaana waa tufaya oo ma ogolaanayo qalbigii xumaana waa qaadanaya waa aqbalaya qalbigii fiicnaa ee diiday nabigu wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam markuu xumaanta diidaba yani barcad baa lagu dhajinaya markuu mid laba diidana barcad oo kale lagu dhajinaya ilaa jir uu qalbigii wada cadaan ifaya uu noqdo iftiinkiisina ay xubnuhu ku iftiinsadaan haddiise laakiin qalbigii uu qaato xumaantii uu qaato oo wixii loo imleynay loo yeedhinaya uu qaato oo cabbo sida suufka kaleeto markuu xumaanta u cabbo goortaasoo kaleeto ma ay anfacayso waxa lagu dhajinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam mugdi baa lagu dhajinaya qalbigii waa madoobaanaya dhibic yar oo madooba ku dhalanaysa way faafaysaa ilaa qalbigoo dhan uu wada madoobaado halka goorta uu gaadhana waa markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam la yaarifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushira min hawa wanaag iyo xumaan ma kala yaqaano bal waxa laga yaabaa xumaantii inay wanaag ugu muuqato oo sunnadii uu bidca u arko oo dhaqankii wanaagsanaa xumaan u arko
oo shaygii macnaha waxa weeyaan akhlaaqiyaadka uu arko dib dhac u arko heerka inuu gaadho ayaa laga yaabaa maxaa yeelay qalbigii ayaa madoobaaday siduu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inta kadib waxaan jecelnahay waxa inaan istul taagno bal qaababka uu maro marka uu doonayo inuu ibn aadamka uu baadiyeeyo ama uu kadiyo ama shirqoolka qaabka uu u dhigo ayaan qaybo kamida doonayna istul taagno waxa kamida qaybaha iyaga in uu xumaanta u qurxiyo tazyiinul baatil xumaanta oo loo qurxiyo xumaantu sideedaba iyo shayga baatilka ah wajigiisu waa foolxuye wajigiisu aad buu foolxuye sida daraadeed wuxuu sameeynaya foolxumadu ka qaadaya markaas wuxuu u gelinayaa mara aad u qurux badan oo lagu qaadan karo ayuu gelinaya midab wanaagsanna waa u sameeynaya si loogu kadsoomo oo loogu sirmo oo dadka ugu shirqoola ayuu ugu sameeynaya marnaba intuu ku yimaado ma uu ku oranayo zinadu way xun tahay oo fasaadka iyo dhibkaas ka yimaadee kala zinayso ku oran maayo marnaba intuu ku yimaado ma uu ku oranayo war jahligu waa xun yahay jahil iska ahuma kuma oranay laakiin wuxuu ku tusayaa zinadii inay qurux badan tahay oo faa'iido ka helayso mafaasideedii iyo xumaanteedina waa ka qarinaya maxaa ka dhalan kara wixii dib adigu soo gaari lahaa aakhiradaada dumin lahaa adduunyadaada dumin lahaa kullu dalika waa ka qarinaya wuxuu ku qurxinayaa wajigeedii quruxda badnaa buu ku siinayaa maradii quruxda badnayd buu ku kadinayaa goortuu ku kadnasoomana dabinka ayaad ku dhacaysa waa miduu ku dhaartay ee uu oranayo la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmaciin tazyiin yani jidka uu maro waa tazyiinka way qurxin way wixii oo lagu qurxiyo sidaas ay macnaha waxa way kamida duruqda uu adeegsado iyo jidadka uu maro macnaha waxa way aqligii buu saxraya aqliga ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay inuu u noqdo seeto xadhiga xidha yani waxa way xubnaha xidha oo qalbigu kaashado wadnaha la shaqeeyo inuu noqdo ilaahay ugu talagalay subhanahu wa ta'ala ha ahaatee waxa way wuxuu bilaabayaa inuu aqliga uu ku rido suuxiyo goortuu aqliga suuxiyo oo uu sixrana yani xubnaha intoodii kaleeto ayuu la tagayaa oo uu macnaha waxa way ka xaysanaya markaas wuxuu u qurxinayaa waxyaalihii xumaa waxyaalihii wanaagsana uu ka leexinayaa oo xumaan ayuu u tusayaa waxa kamida jidadka uu adeegsado ee uu maro inuu gaaro hadafkiisa ujeedadiisa inuu gaaro waxa kamida waxyaalaha wanaagsan ama waxaan u jeedaa waxyaalaha xun sida macaasido kaleeto dunuubto kaleeto fawaaxishto kale inuu magacyo wanaagsan u bixiyo si xumaanteedu u ay u qarsoonto waxaad xusuusantiin nabiyullaahi aadam calayhi wa calaa nabiyina salaatu wasalaam markii uu doonayay inuu baadiyeeyo ee uu yimid wixii ilaahay uu ka reebay subxaanahu wa tacaala inuu ku dhacana uu rabay oo xadda alla uu tilaabo xageeb u soo maray wuxuu u soo maray geedii la yidhi nabiyullaahi aadam ha isku taabanin jannada inta kale tadaaq jannada inteeda kale ka cun laakiin geedda ha taabanin geedii la yidhi geedii buu qurxiyey muxuu ku yidhi waxa uu yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa aadamow war aadan haynin baan hayaaye waa kaa warroonahay waana kaaga khibrad badnahay ma ku tusaa buu yidhi geed haddii aad cunto aad waari oo weligaa aadan dhimanaynin boqortooyo iyo mulkina weligaa aad haysan doonto shajaratu alkhuldi wa mulkin laa yablaa boqortooyo aan dhammaanaynin iyo geedda waaritaanka keenta ma ku tusaa buu ku yidhi nabiyullaahi aadam marka waa kadsoomay weliba waxa weeyaan wuxuu u soo maray xagga alluu kaga yimi subxaanahu wa tacaala goortuu arkay nabiyullaahi aadam aan ku kalsoonayn waxa uu sheegayo ayaa marka waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waa u dhaartay ilaahay baan ku dhaartay inaan daacad idin ahay oo waxa aan sheegaya ay run tahay oon doonayo inaad waartaan oon doonayo inaad boqorro noqotaan oonan rabin marnaba xumaan idinla rabin maarta goortuu u dhaartay ayuu nabiyullaahi aadam marka kalsooni siiyey xaggee marka lagu siray waxaa lagu khayaamay geedii jannada lagaga saaray ayuu wuxuu magaceedii intuu ka bedelo magac kale u bedelay magac kale uu siiyey wuxuu u bixiyey shajarata alkhuldi wa mulkin laa yabla geedii uu magac kale siiyey waxaa ka mid a waxyaalaha hadda uu adeegsado maalan ribada bunuugtu bixiso
ribada ay bunuugtu bixisay bunuugta laga qaatay inta la dhigto lacagta dulsaarka waxa loo bixiyay magaca riba looma bixinin waxa loo bixiyay faa'iido la yiraahdaa faa'iidatul bunuug baa la dhahaa waxa kamida midalan isqaawinta iyo xishmada iyo akhlaaqiyadka oo laga tago khaasatan haweenka ayaa wuxuu u bixiyay magac wanaagsan oo la yiraahdo tahriirul mar'a haweentii in la xoreeyo adoon bay ahayd gumaysi bay ku jirtay cagta hoosteeda lagu hayay xuquuq la'aan bay ahayd wabitaali maxaa la qabanaya tahriirul mar'a waa in la xoreeyo marka waa in la xoreeyo waa mowduuc qalabka warbaahinta ee reer galbeedka iyo inta la shaqaysay ay aad ugu adeegtaan way isdhexgalka iyo rag iyo haweenka in la isku dhex siidaayo oo wax kala socnaaday aysan jirin ayaa isagana waxa loo bixiyay at-tamaddun reemagaalnimo iyo horumar baa lagu magacaabay horumar in bulshada la isku dhex siidaayo oo labadan jinsi ee la kala ilaalinayo ee la kala fuquuqayo la daayo oo macnaha waxa weeye seetada furan laga dhigo barnaamijka cidii ka hortimaaday waxa weeyaan waa reebadi waa nin adduunka ka dambeeya waa mabda'an adduunka la soconin ila aakhiri magacyadii ay lahaayeen baa marka laga bedelayo magacyo kale to ayaa la saaray waxaad arkaysaan midalan midan dhadhawaaqda ee macnaha waxa weeye waxbaan heesayaa tiraahda ee jamaahiirtii dadka intay soo hortaagto afka kala qaada ee faajirada ah ayaa waxa loo bixiyay fanaanad alfanaana baa la yidhi midda jilaada ee iyadana filmada jisha ama riwaayadaha macnaha waxa weeye jisha ayaa iyadana waxa loo bixiyay albatala geesiyad najmi baad oranaysaa iyadoo loo arkay maartay iyadoo lagu magacaabay arkaysa macnaha waxa weeye xidigii iyo xidigtii waa saaqidaad wey dad aan macna lahayn oo bulshada intii ugu hooseysay ah ayaa magacyo wanaagsan oo aad u qurux badan baa loo yeelaya hadafka la leeyahay maxay tahay waa khudda shaydaaniye wey waa barnaamij shaydaan ka dambeeyo wey hadafka la doonayana waxa weeye in la jeclaysiiyo dadka intiisa kale in la jeclaysiiyo oo ru'uus xunxun inta loo sameeyo loo qurxiyo marka kadib nin walba uu yidiisho oo gabadh kasta iyo wiil kasta ay isku dayaan sidii ay u gaari lahaayeen midaas macnaha waxa weeyaan meesha iyada la amaanayo gaadhay in macnaha waxa sidii loo gaari lahaa marka yaani waxyaalaha magacay lahaayeen la huwiyay ee la isku dabayo shaydaan uu dadka ku shirqoolayay aad bay u farabadan yihiin waxa kamid ah iyaduna cagsa dalika waxyaalihii wanaagsanaa oo iyagana magac xun dusha laga saaro maxaa yeelay xaqa iyo wanaagu waa nuur waa iftiin waa qurux quluubta soo jiidanaya oo indhaha soo jiidanaya cid kasta ayaa qaadan lahayd marka haddii aan maradan taato shaydaanku u saaray laga qaadi lahaa marka si aan loo raaceen ayaa wuxuu saarayaa go'weyn oo fool xun oo dhib badan oo rafaad mirana buu dusha ka saaraya si looga wada cararo magacyo xunxunna markaasuu u bixinaya sidaa daraadeed yani ayaa markii aan dib ugu noqono shayaadiinul insiga iyo qolyihii madaxda ay la shaqayn jiray shayaadiinta la shaqeeya shayaadiintu ma aha shayaadiinul jinni kaliya ma aha shayaadiinul insina waa jiraan shayaadiinul jinnina waa jiraan insiga inaga tirsan ee mabaadi'da baadilka u adeegay ama dimuqraatiyaha u adeego ama laadiiniyaha u adeego ama dhaqan iyo xeer jajab ha u adeego waa shayaadiinul insi baa la dhahaa waa shayaadiinul insi iyagana ka daran ka kaleeto iyaga ka daran shayaadiinta noocaas oo kaleeta markii ambiyada iyo xaqu u yimaadaan xaqa waxay saari jireen magacyo xun bay u bixin jireen nabigeena sallallahu wasallam alayhi maxaa loo bixiyay saaxir weeye majnuun weeye waa waalan yahay caqli ma laha waxa uu la yimid waa asaadiirul awwaliin kutirikuteen wey waa wax la iska yidhi yani ummadii hore wuxuu ka soo ururiyey weeye beenaalo weeye ila aakhiri ambiyadii ka horreysaa ka horreeyey يعني أنبيادي كوري نبينا صلوات الله والسلام عليه وحي لغو قابل أيضا وادقرانيسان magacyo xun in dusha laga saaray casrigeena hadda aan joogno hadaan ku soo dhawaano waxa kamid ah mesela in dadka xaq wada ee culimada ah ee dadka cizigoodii iyo sharafkoodii iyo umadnimadoodii iyo madax banaanidoodii ugu baaqaya
in ummadaha kaleeto iyo dabadhilifnimadoodana laga hoos baxo dadka ugu baaqaya aakhiradooda iyo adduunkoodaba inay hagaajistaan in magacyo badan loo bixiyo oo la yidhaahdo kuwii budhla duulka ahaa kuwii marakudhagga ahaa kuwii mutadarrifiinta ahaa kuwii irhaabiyiinta ahaa yacni waxa weeye magacyo ila aakhiri gabadhii xijaabka qabtay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddii jidhkeeda u qarisay in la yidhaahdo yacni waxa weeyaan waa teendho socota teendho wey teendho guuraysa wey in la yidhaahdo in lagu tilmaamo dadka multasimiinta ee rag iyo haweenay diintooda dabaqaya inay yihiin dad adduunka ka dambeeya oo adduunka aan la soconin rajciyiin inay yihiin guriga oo gabadha muslimadda ay ku sugnaato oo gurigeeda ay nolosheeda inteeda badan ku qaadato ay laasimto oo lagu tiriyo inuu xabis yahay lagu tiriyo kullu dalika waxa weeye waa magacyaha xunxunka ee xaqa la huwinaya wey ujeeddaduna ay tahay in xaqii la xumeeyo si dadkii ay uga tagaan oo looga jeedsado waana duruq shaydaaniya wey jidadka uu maro ama asaaliibta uu adeegsado ayay ka mid tahay waxaa asaaliibtu adeegsada ka mid ah inuu nufuusta ama nafta ka soo galo ibni aadamka meesha ay iyadu jeceshahay naf kasta waxbay jeceshahay mid baa geesi ah oo dagaalka jecel mid baa haweenka jecel ama haween baa rag jecel shahwadiisa ayaa xoog badan balwadiisa ayaa xoog badan mid baa xoolo jecel oo xoolaha ku ibtilaysan mid baa kursiga jecel oo kursiga wuxuu u dhiga aysan jirin inuu madax noqdo oday noqdo mid kasta naftiisa ayuu ogyahay oo la shaqeeyaa naftiisu meesha ay jeceshahay buu kaga imaanaya marka albaabku ka soo galay waa albaabta naftaadu jeceshahay mid baa in la sheego jecel oo la magacaabo oo macnaha waxa weeyaan la sheego oo dadku ay magaciisa sheegaan ka boqortooyada jecel xagga boqortooyadu ka soo galay boqortooyadiisa inuu u maro wax kasta oo xaraam ah ayuu ku kalifaya dhiigdaadi ummada baabi'i xaraam same gaalo macnaha waxa weeye la qabiil noqo ayaga la tasho waa inaad kursiga uun ku fadhiisato sidaa doonay adigu ku gaadhi halkaasuu kaga imaanaya kii xoolaha jecelaa xoolihii buu ka soo gelayaa wuxuu ku odhanayaa meel alle meeshaa dooni baa kaa soo gashee muhiimaddu waa shilinka waa inuu ku soo galo kadib markuu ku soo galana wuxuu odhanayaa yacni faqri baa jira abaaraa imaan doona waad gaajaan doontaa baahi baa ku haysa iska hayso halkaasuu kii xoolaha jeclaana kaga imaanaya kii mas'aladii jinsiga iyo shahwadana iyo balwadiina nin walba balbadii uu jeclaa ayuu isagana doonayaa xuduudda sharciga isagoon ilaalinin inuu macnaha waxa weeye guto naftu marka meesha ay jeceshahay buu kaga imaanaya asaaliibta iyo qaababka uu adeegsada ayay ka mid tahay inuu naftu meeshay jeceshahay uu ka soo galo maxaa yeelay taatiig waxaa jira aan kan u qalmin laakiin kan u qalma kan u qalmaa laakiin kan u qalma kan uma qalma laakiin kan u qalma waxaa suurtagala maalan inuusan dadka qaarkii ku qancin karaynin inay macnaha waxa weeye boqortooyo raadiyaan oo mulki raadiyaan maxaa yeelay umaba samaysnaa nufuustoodu maba doonaysaba qolyo kaleeto waxaa laga yaabaa inuusan ku qancin karaynin warkaalaya oo xaaraam kasbada laakiin uu ka soo geli karayo xagga daacaduu samaynaya iyo wanaagguu samaynaya ee cilmiguu baranaya iyo salaaduu tukanaya soonkuu soomayay inuu waxoogaa uu yaro qurxiyo si dadku ay u sheegaan oo loo yidhaahdo hebel aleleh waa nin salaad badan halkaasuu kaga yimid kii cilmiga lahaa cilmigiisiibuu ugu soo dhex dhuumanaya nin walba meesha naftiisu ay u iilanaysee balwadda macnaha dookhiisa uu ku jiro halkaasuu ka soo gelaya albaabku kaga imaanaya midkaa isagaa wey halkaasuu kuu fadhiyaa marka yacni asaaliibta uu adeegsanayo iyo qaababka uu u dagaalamaya ayay ka mid tahay ee uu rafanaya maarta waxaa ka mid ah asaaliibtiisa uu u dagaalgalo marnaba kuma odhanayo markaba inuu ku soo gooyo isku day maayo markaba inuu macsiyada kaa soo gooyo isku day maayo bal wuxuu ku odhanayaa tilaabuu kuu soo qaadaya tilaabuu kaa soo dejinayaa tii markii uu kugu guulaysto tu kaluu kuu sii wadayaa taa hadduu kugu guulaysto tu kaluu haddana kuu sii wadaya maxaa yeelay ibni aadamka naftiisa waxay baratay hal mar lagama goyn karo sidaa daraaddeed maalan hal tusaale haddaan soo qaadanno hadduu doonayo goortuu doonayo inuu zina kugu rido maalan waa tusaale inuu zina kugu rido goortuu doonayo wuxuu marka hore kaaga bilaabayaa fiiradii buu kaaga bilaabayaa araggii horuu kaaga bilaabaya goortii arag dhacana
oo fiiradii dhacdo labadii indhood ay isku dhacaanna waxaa dhacaysa hadal baa imaanaya waa darajada labaad ee uu kula soo degay wey labadii ruux inay wada hadlaan goortii la hadlana waxaa imaanaysa in la ballamo goortii la ballamana tilaabada afraad ee ku xigta waxa weeye in la kulmo saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa nadratun faibtisaamatun fakalaamun famawcidun faliqaa'un baa la yidhahdaa yacni waxa weeyaan fiiro iyo qosol yar taasaa meesha ku jirta waa baaq macnaha waxa weeye yacni muusood laysu muusoodo goortii lays arka kadib muusoodkaa kadibna hadal uu dhaco hadal goortuu dhacana ballan la samaysto ballankana kulan ka dambeeyo markii ugu horraysaba meesha ugu dambaysa muusan kaaga soo bilaabine tadriijiyan tilaabo kuu soo qaaday wuxuu doonayaa markaa yacni in uu dabinka ku geliyo marka uu doonaya inuu ku geliyo dabinka marnaba waxa weeyaan meeshii ugu dambaysay iyo meeshii ugu korraysay hal mar macnaha waxa weeye inuu ku soo qaado isku dayi maayo tilaabooyinka qaabka wax u baadeeyay oo ku raalin ahdaaftiisuna waxa weeye marka ugu horraysa ujeeddada ugu horraysa uu kaa doonaya inaad gaalowdo wey wuu kaa waayay sooma wuxuu raalli ku noqonayaa marka inaad noqoto munaafiqnimadii hadduu kaa waayo wuxuu isku taxallujinayaa oo tilaabada saddexaad ay tahay inaad noqoto muslim caasi ah caasinimadii buu kaa waayay soo maaha yacni wuxuu isku dayayaa muslim ku mashquula oo wakhtigiisa ku lumiya waxyaalaha iska mubaaxaadka ee maalaayacniga faa'iida aan lahayn waxyaalahaasuu kugu daahinaya goortuu kaa waayo waxyaalihii kaleo dhan uu ku suurtageli weyday kuwa hadduu kaa waayana waxyaalaha laga fiican yahay buu doonayaa inuu ku geliyo tilaabooyinkaa kala gedisanayo macnaha waxa weeyaan isku taxallujinayaa inuu kaa helo saa daraaddeed baad sharcigeenna garanaysaan sida uu arrintaa uga taxadiray yacni qaacido wuxuu leeyahay qaacida la yidhahdo saddu daraa'ic shaygu intuusan dhicin in laga hortago ka hortag maxaa loo xarimay in yacni waxa weeye haweenta ajnabiyaddaa la fiiriyo maxaa loo xarimay haweenta ajnabiyaddaa in guri lagula gooni noqdo ma u jeedaa biduuni maxramiha iyadoo macnaha waxa weeye cid gayda nin la geeya uusan la joogin maxaa loo xarimay gabadhu inay safarto biduuni maxram kullu daalika waa ka hortag laga hortegayo faaxishada iyo xumaanta iyadaa saysan u dhacdeen albaabkaa loo soo xidhay nabiguna sal alla alay waslam wuxuu leeyahay man xaama xawla alximaa yuushiku an yuwaaqica fiih seeraha xoolaha loo diiday yaan la gelin la yidhi ninkii ku ag wareegaysto oo ka ag tegi waaya marka dambe waa ku dhici doonaa un ninkii seerihii la xidhay ee xoolaha loo diiday adhigiisa ku ag raacay ri inkaari ku dhacday oo booddaa unbaa marka dambe iska tuuri doonta goortay iska tuurtana waa gooray kuu dhammaatay wey marka si loogama fogaadaba waxna albaabka loogu xidho ayaa sharcigu wuxuu sameeyey tilaabooyin kala sokeeya ooda kala shisheeya ama kala sokeeya oo albaabka u xidhaya ka hortagna samaynaya shaygii intuusan dhicin hadafkaasaa la leeyahay si tilaabooyinka hore ee shaydaan looga hortago ayuu sharcigu arrimaha iyaga u jidaynaya maaragta ahdaaftiisa waxaa ka mid ah inuu insaanka marka horeba uu halmaansiiyo wax alla wixii ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo garashadeeda iyo xusuusashadeeda oo halmaanba uu ku rido halmaanba inuu ku rido jeediyo oo wax ilaahay soo dejiyey iyo wuxuu ilaahay soo diray iyo wuxuu ilaahay amray iyo wuxuu ilaahay rabay midnaba uusan ka warhaynin oo jahli uu geliyo xaaladda iyadii macnaha waxa weeye iyaduna ahdaaftiisa ayay ka mid tahay uu aad iyo aadka ugu dadaalo waxaa ka mid ah inuu isagu kaa muujiyo inuu daacad kuu yahay naasix inuu kuu yahay oo uu daacad kuu yahay oo uu kula talinayo oo wanaaggaaga ka shaqaynayo inuu sidaa isugu kaa muujiyo iyadana waxay ka mid tahay asaaliibtu adeegsaday ka mid tahay ilaahi subxaana wa tacaala waa ka inoo sheegaya nabiyullaahi aadam markuu sirayey waa kii ku odhan jiray waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waa u dhaartay oo wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaan idin ahay daacad idin naseexaynayaan ahay nin daacad idinah oo weliba idin naseexaynaya oo danihiinna ka shaqaynayaan ahay marka danahaagu ka shaqaynaya goortuu gaalo isu dhiib ku leeyahay oo gaajaa ku qaban oo abaaraa ku tirtiriya soo cararoo gaalo gacanta u horso uu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay oo isagu kuugu muujinayaa danahaagaan wadaa goortuu zine kugu ridayo wax danahaagii waduu iska dhigaya goortuu macsiyo kugu ridayo hadalkaaga xumaan afkaaga uu ka soo saarayo yani waxa weeye dan ku wadu iska dhigaya ma u jeedaa inuu kuu danaynayo maslaxadaada ka shaqaynayo ayadana waxa weeye arrimaha uu dadka ku sira ku khayaamo ayay ka mid tahay intaasi marka asaaliibta uu dadka u baadeeyay ayay ka mid tahay
asaaliib kale oo fara badanna way jirtaa xataa hadduu adiga si toos ah kugu imaan waayo waxyaalo kale oo adigu aad isleedahay yani waxa weeye qiimamo male ayuu meel ka samaynayaa si aad adigu macnaa waxa weeye wuxuu doonaya kaaga gaadho maxaa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wasallam midna waxaa ka sugan in uu yidhi shaydaan baa koox u yimid markaasuu damcay koox dikri hayso ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaysa oo wanaag haysa buu u yimid wanaaggii uu damcay inuu halmaansiiyo oo uu u furo barnaamij kale iyo sheekooyin kaleeto inuu u furo waa u suurtageli weeye goorta u suurtageli weeyadu wuxuu u tegey koox kale oo agtooda joogtay oo ama turub dheelaysay ama khamaar ciyaaraysay ama iska ama shax dheelaysay meel meeshana fadhiday buu u tegey kooxdii buu isku diray markuu isku diray raggii waa islaynayaan marka islayeen rag islaayay oo agtaada isku leeyahay waa inaad u ciidanto Soomaa marka waa in la kala qabto raggii dikriyahayay ee uu shalayto ku guulaysan waaye markuu u yimid waa kuwan kala orday ee marka ragga kala qabqabanay ma ujeeda waa mashquuleen waxay ku mashquuleen wax iyagu marka ay u arkaan inay maslaxad tahay laakiin ay tahay xaqiiqadiisu ay tahay dabin shaydaanku uu dhigay uuna doonayay inuu kaga kaxeeyo dikrigii ay haysteen iyo wanaaggii ay haysteen aad baan ugu badanahay masalada iyada haddaan Soomaalina inaga ma ujeeda yani mas'alada yani shay yeeray aaditaankiisa ama dhageysigiisa ama fiirsigiisa aad baan ugu fara badanahay waana dabeecay inoo tahay annagoo hadda sidan taata macnaha waxa weeyaan ugu jirno muxaadarada ugu jirno ama ruux isagoo muhiimad weyn baa haysta meel yar hadduu buuq ka dhaco oo buuq yar u arko buuqa inuu isdul taaga mooyaane ma uu istaagayo laabudda waa inuu soo fiiriyo ma ujeeda laabudda waa inuu soo fiiriyo muhiimadduu ka tegay iyo waxa uu ka kacaya iyo waxa uu ka mashquulaya ma miisaamayo laakiin maadaama uu buuq yahay buuqa waa inuu soo arka maarka waa tabinada shaydaanku uu ku agto bal waxa weeye absad mithaal wey mithaal midka ugu sahlan oo la bixin karayo wey